madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay ururada haweenka Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ee ku kala jira labada gole ee baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir Jaketi isla markaana ay hogaaminaysay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xildhibaanad Xaniifa Maxamed Ibraahim kulanka ayaa looga hadlayay muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo lana hubiyo qoondada haweenka Soomaaliyeed ee boqolkiiba 30 ay ku leeyihiin golaha baarlamaanka dalka wasiirka haweenka xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Xaniifa Maxamed Ibraahim ayaa madaxweyne Cabdicasiis ku boorisay in maamulkiisu uu xil gaar ah iska saaro xaqiijinta qoondada haweenka golaha soo socda boqolkiiba 30 baarlamaanka labada gole 329 waxay ka yihiin 91 xildhibaan hadda waxaan haysanaa 80 xildhibaan waxa ay naga maqan 12 xildhibaan Southwest ama koonfur galbeed way keeneen maxaan lahaa intii laga rabay walow guud ahaan markii la tiriyo laba kursi ay ku maqan tahay kuwaasoo ku maqan qabaa'ilada labada kursi ama halka kursi haysto waxaan rabnaa in markii ugu horeysay koonfur galbeed 77 xildhibaan oo taalo in laga xaqiijiyo boqolkiiba 30 inay soo saarto kadib waxaan ka rabnaa sidii hore loo sheegay deegaanka koonfur galbeed dadkiisa iyo siyaasiyiintiisa iyo dhaqankiisa gabdhaha waxba uma diidi jirin siyaasaddu ay ku soo dhaweyn jireen adigana sidaas si leeg ayaad samaysay intii hadda aad joogtay waxaana tusaale inoogu filan degmooyinkii konsolka loo dhisay baarlamaankii koonfur galbeed oo inta aad joogtay la dhisay waxaan rabnaa madaxweyne inaad gabdhaha Soomaaliyeed kala shaqeyso dhammaan gobolada dalka in 10% laga hirgeliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa sheegay in qodobada laga heshiiyay shirka golaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka lagu daray in la hubiyo doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka isla markaana dhankooda ay ilaalin doonaan waxay ahayd tabashada iyo cabashooyinka 3 qodob oo ahayd gudiyadii laga hadlayay oo ku jiray looga dacwoonay inay ku jiraan dad aanan soo buuxin shuruudaha oo ma ah shaqaale dawladeed iyo waxaas ah iyo arintii gado iyo arinta Soomaaliland saddexaas waxa afar oga dhignay boqolkii 30 haweenka Soomaaliyeed ay baarlamaanka leeyihiin afar looga dhigay marka waa la ogyahay heshiis kasta oo Soomaaliyeed oo miis la fariistana way ku jirtaa waana laba taabtaan sida hadda aad sheegteenna waad arki doontaan insha Allah taala keeygu ku soo bixi doona Ilaahay ayadoo uu ku qoran yahay luqadda ugu fiican oo ugu adag ayadoo ay ku qoranto ku soo bixi doona Ilaahay waana xaqiijin doona oo kama hari doono insha Allah